السلام عليكم waxaa ku saraatay YouTube channel kayga waa aniga afnaanaadan waxaa la soo noqday video cusub hadii channel kan ku cusub tahay welcome hayga ilowin subscribe ka hadii aad kamid tahay daawadayaasheeda hore then welcome back and raali gelinani wada ayaamahan xoogo YouTube ka active ma aha been very busy nolosha ku mashquulsanahay waxyaalo fara badan aan nolosheeda ka dhacayay bawaniga raali gelinaya insha Allah will be back and YouTube kan wali ma sheegin waxa oo channel kan soo dhigi doono and some people way arkan YouTube kayga mararka soo galiyay mararka hore routine iyo waxyaalo soo galini jiray soo su'aasha isweydiinaya hadda waxa waaye maxaa soo galini doonta ani ahaantayda waxa jeclaa YouTube kayga inuu noqdo YouTube faa'iido ma rabi inuu noqdo madadaalo iyo waxyaalahaas I think ina hore u sheegay so insha Allah waxa soo galini doona cashiradayda aniga noloshayda bareysay insha Allah waxa soo galini doona waxyaalo fara badan ee dadka ka faa'iideysan doonaan aniga I see myself as a person who has learned a lot of lesson I think dadka dhan og casharo badan inaan soo bartay in waxa jeclaan lahay casharada aniga nafsadeeda ka soo bareysay khibrada leeyahay dhan inaan la wadaago walaalahayga maadaama ogahay inay jiraan dad u baahan anfacayso wax u tareyso mid kale tan insha Allah waxa soo galin doona routine-kayga caadi ahaan ayaga barani jirteen so many people ask me if nan routine gorma noo soo celinay routine badan noo soo duub iyo vlogyaal badan kuwaasna way soo galini doonaan laakiin way isku jiri doonaan faa'iidada iyo routine yaasha iyo vlog insha Allah xasan waan isku wadi doonaa insha Allah hadda laga bilaabo videogan isbuucii YouTube channel kayga isbuucii 2 mar video soo dhigi doonaa so halaas ka bacdi maanta maxaa wada maanta caawa ama Soomaali ani hadda habeen ay tahay caawa waxa jeclaystay inaan ka hadlo xiriirada nolosheena waxa jira xiriiro kala nooc oo soo maray magacyada kala leeyihiin way kala duwan yihiin xiriir kastana waxa wataa purpose sabab oo qof ma jirto noloshaada iska soo galaayo bila macno laakiin ani ahaan waxa aaminsanahay inay jiraan 3 xiriir oo aad iyo aad u awood badan powerful maanta waxa jeclaystay mid kamid ah 3daas xiriir inaan ka hadlo xiriirkaasna waxa la dhahaa karmic and so many people they are dealing with a karmic person waxay ku jiraan xiriir karmic and they don't even know xiriirkan ay ku jiraan inuu karmic yahay and karmic qofka karmic waan iga sheekan doona waxay yihiin laakiin waxay aad iyo aad iskugu dhow yihiin qofka marti soulmate-ka mise twin flame qofka saxda oo Ilaahay kuugu talgalay noloshaada in dadka badankoodana waxay ku qaldaan xiriirka karmiga xiriirka soulmate-ka loogu talagalay cimrigaada inta ka dhiman mise qofka saxda ee loogu talgalay noloshaada inuu soo galo insha Allah waxa ka sheekeeni doonaa wuxuu yahay karmic relationship iyo siyaabaha saanyasha ku fahmi kartid xiriirkana ku jirtid mas xiriirkan hadda dhamaanayo mas xiriirka hadda ka soo dhamaaday inuu ahay karmic oo ahaan xiriirkii saxda ahay karmic waa nafsad soo gashay noloshaada si ay ku barto casharo u baahanta inta baratid inta aan nooshahay waxay ka mid yihiin deemaha gudaysid maxaa way deemaha gudaysid adduunka saanaka ognahay qof dhameystirsan ma joogo qof perfect ma joogo so basically waxa laga yaabaa adiga ina xiriiro kala soo martay dad kale ina soo xumeysay qof kale ina qalbiga ka soo jibisay mas waxyaalo kale ina soo sameysay and those people karmic Allah which means they are karma as well so they will make you pay wax kasta adiga qalad kasta ka soo dhacay mas xumaan kasta aad banaanka geysay they will come back to you and you have to pay the price waxa kale loogu talagalay inay ku baraan qaybaha adag ee nolosha kuwani waa xiriir qalafsan waa xiriir xun waa xiriir wareersan oo loogu talagalay inay sii jiraan laakiinse loogu talagalay in lagu muujiyo boogaha aad u baahan tahay si aad nafsadaada u bogsiisid YouTube-kayga waxa ku xiran dad badan oo say wallahi af Soomaaliga waa weyn ma fahmi karaan soo maxaa laga wadaa muujinaya boogaha aad u baahan tahay si aad nafsadaada u bogsiisid so basically waxa laga wadaa wounds bog waa wounds xanuuno kugu soo dhacay and most of the people ma ogaan man anaga waxaan dadka qaar waxa ku dhaco xanuuno markay yirihiin waxa mari kartaa waqti adaga soo mari kartaa waxyaalo xanuujinaya nafsadaada la kulmi kartaa adigoo ciyaal ilaa xataa inta ka weynaanaysid marka teenage ka tahay xanuunadan oo dhan waqtigu way ku ilowsiinayaan hore ugu sii soconay but just because ina soo ilowday doesn't mean ina ka caafimaaday ka socotay mararka qaar xanuunadan way nagu qarsan yihiin way nagu duugmayaan
and anaga xataa ma ka warhayno inaan gudaha ka xanuunsanahay. We don't even know that. And waxyaalaha ugu waaweyn oo dadka karmiga ee nolosheena soo geliyo waa xanuunada anaga gudaheena ku qarsan, waxay nagu caawinayaan xanuunadana banaanka keenayaan si aan uga caafimaadno. yani adiga hadaa xanuunsan tahay ogta ina xanuunsan tahay waa bixi kartaa xanuunkaada daawo usoo gadi kartaa, waa caafimaadsiini kartaa, dhakhtar raadsani kartaa. laakiin iskabarna haddii aad ogeyn ina xanuunsan tahay maxaa iska caafimaadsiinay, yani maxaa iska shaqeynay, waxa iska shaqeysid ma jirto. And sometimes waxaa lahay we attract what we are, not what we want, you know. mararka qaar anaga waxaa soo jiidana waxa anaga nahane, ma soo jiidano waxa anaga rabno. So basically the karmic purpose-ka sababta noloshaada usoo galayaana waxaa ka mid ah xanuunadan adiga ciyaalnimadaada iyo waqtiyaashaan dhan soo marayso kugu qarsameen oo noqdeen a part of you inay banaanka keenaan sida ugu shaqaysid ugu caafimaadin. Karmic relationship mise karmic partner waxaa loogu talagalay waqti ka mid ah noloshan inay soo galaan si ay noo tusaan meesha nafsadeena ka jecleen. waa arki kartaa waxaan hadhow gadaal markii aad dib usoo noqotid, yani xiriirkan markuu dhamaado miirkaada markuu soo noqdo waxaa arki doontaa nafsadaada in adiga weligaa jecleen, because the karmic relationship ma ahan jeceel laba dhinac ka socdo, badankooda waa jeceel hal dhinac ka socdo. waxaa arkay qof nafsadiisa bas la jecel yahay, wax kasta nafsadiisa roo sameena, wax kasta faa'iido ugu jirto sameena, nafsadiisa kaligiisa ka fikira. haddana waxaa arkay qofka kaleeto nafsadiisa ilooba, wuxuu sameynaa wax kasta waqtigiisa, enerjigiisa, lacagtiisa iyo awoodiisa dhan wuxuu ku bixinaa qofkan kale sidoo farxad u siiyo. haddana waxaa arkay waxyaalo loo dulqaadanaynin oo askaga dulqaadanay, waxyaalo loogu talagalay inaa cafisid iska cafine, waxyaalo loogu talagalay inaad samaysid maanta dhan sameynay just because inuu qofkan noloshaada ku jiro mise qofkan inaad farxad siisid. meeshan oo meesha waxyaalaha kamid ay ku barayaan waxaa kamid ah inaad nafsadaada jeclaatid. waxay kaloo ku barayaan jeceyl waxaa ka rabin iyo jeceyl wuxuu ahaan, because the karmic relationship badankooda ani xaq ilahay kulligood, but sometimes badankooda jaceylkaas waa fake, ma ahan jeceyl sax ah. So basically waxaa baranaya xataa jaceylka saxda wuxuu yahay iyo jaceylka fake ah wuxuu yahay. xiriirkan ma loogu talagalay inuu sii jiro oo wuxuu noqoni karaa mid toxic ah, mid aad iyo aad u sumaysan, and especially markuu qofkaan noloshaada ka baxayo waqtigiisa, markaa qofkaan la gaaro adiga fahmi la-dahay weli xiriirkan kusii jirtid, wuxuu isku bedeli karaa toxic mise even dangerous. waxay ku xiran tahay the person you are dealing with wuxuu yahay. waxaa lagaa rabaa inaad ka faa'iidaysatid xiriirkan karmic si aad u kortid oo aad u hiilgaraysid. waxaa kugu soo jiitay markii hore, maxaa qofkan kuu geeyay at the first place, maxaa sabab u ogolaatay waxaasoo dhan inay kugu dhacaan. what part of you is not healed or wounded that caused you to go through all of this. So guys, hadda waxaa sheegaa 14 calaamadood aad ku fahmi kartid xiriirkan aad ku jirtid mise xiriirkan hadda kaasoo dhamaaday inuu yahay karmic oo ahayn xiriirkii saxda ahaa. Are you ready? tan koowaad waxaa jira xiriir degdeg ah, yani xiriirka si dhaqso u galee, si lama filaan ah u galee iyo waxaas camal ah. calaamadaha ugu cadcad mas ugu waaweyn waxaa kamid ah qofkan marka koowaad la kulmaysid waxaa dareemay weliga inaa hore u taqaanay, yani you feel like I know this person before. and taasna waa calaamad marka qofka soulmate-kaada, qofka saxda noloshaada soo galaya soulmate-kaada marka aad la kulmaysid isla wixii aad dareenkana dareemay oh my god qofkan weligii hore u taqaanay. it's because qofka soulmate-ka hore nolol kasoo sheegay inta adduunka imaanin nolol kale ku noolaani jirna ana ka xasuusanin nafsadeena noolaani jirtay. so nafsadeena noloyaashii hore dadkii hore la u taqaanay qofkii noloshaada hore kusoo jiri jiray marka adduunka la kulantid markasta waxaa dareemay qofka inaa hore u taqaanay, which is true, qofkan hore u taqaanay but the karmic they are also the same. markii kow noloshaada soo galayaan waxaa dareemay qofkan inaa hore u taqaanay. mararka qaar waxaa dareemay xitaa dareemo wanaagsan oo ku dhahaya like oh my god waxa u maleeyaa meeshan yani qofkan inuu yahay qofkii saxda ahaa, qofkan nolol qurux badan isiini doonaa, qofka mustaqbal qurux badan isiini doonaa iyo waxyaalo wanaag fara badan aan dareemay. and taas waa calaamada koowaad. and tan like I said before waxaa la dareemay the soulmate, but the karmic
mala kala saari karo. But then karmiga waxyaalo fara badan ay kaga duwan yihiin oo muujinayo haddii adiga soo jeedid aad arki kartid qofkan maaha qofka saxda ahay. tan labaad okay waxaa ku jira drama badan xiriirkan waa xiriir drama fara badan ku jiraan yani hal drama laba drama ma ahan drama aan marna dhammaanaynin maantana soo noqonayso. haddii dramada ay aasaas u tahay xiriirka jaceylka waxay u badan tahay inaad ku jirtid xiriir karmiga. tan saddexaad things fell off early on ma dareenta calaamo fara badan oo gaduudan especially xitaa xiriirka bilaawgiisa waxaa arki kartaa calaamo fara badan oo gaduudan badankood way ka hoos dhuumanayaan badankood way naga hoos dhuuntaan calaamadahan gaduudan mararka qaarkood those triggers waxay ka mid yihiin casharada xiriirka loogu talagalay inuu ku baro yani calaamadaha gaduudka arki la-dahay waxay ka mid yihiin casharada baranoosid. tan afraad waxay ku dareensiinayaan niyad jab. haddii aad dareemaysid niyad jab iyo faham la-aan in lagu fahmaynin waxay u badan tahay xiriirkan aad ku jirtid inuu yahay karmic. sababta u weyn it's because the karmic relationship sida hore nagu soo sheegay ma loogu talagalay inuu noqdo xiriirka saxda ah xiriir qurux badan oo ma aragtay the perfect union. waxaa loogu talagalay growth xiriirkan oo dhan wuxuu ku saabsan yahay koritaan. so because of that iyo casharo lagu baraya. so because of that haddaa nolol qurux badan ku jirtid casharo ma barani kartid and you cannot even grow sometimes in it. so waa karmic way xun yihiin agjoogistaankooda sabab kasta ha ahaatee oo waxaa laga yaabaa inay tahay dareemo aan fahmi karin meeshay ka imaanayaan. waxaa arkaysaa agjoogistaankooda inay tahay mid culus haddana ma rabtid inaad ka tagtid. can you imagine meelaad ka xanuunsanaysid meela culays fara badan ka dareemaysid haddana rabin inaad ka tagin. that's toxic on the highest level ba xiriiradan saas u shaqeeyaan. tan lixaad waa balwad يعني balwad يعني obviously addiction يعني qofka ma qof addiction ku noqonaya. sign toddobaad there is high and lows يعني xiriirkan ma ahan xiriir hal si camal u socdo maartay waa wax maanta dhan waa high and low يعني xiriirada kale xiriirada healthy like soulmates and twin flames xiriiradaas waa xiriir caafimaad waa hal si u socdaan waa xiriir nadiif ma aragtay baye mararka qaar ayaga xataa isku dhacaan way istaabtaan. Soomaali hore waxay dhahday ilka iyo carab isku dhaweys qaniinaan balaakiin xiriiradaas kale aad iyo aad ugu duwan yahay. yani you can have maalmo aad iyo aad u qurux badan heli kartaa even maalmo khatar heli kartaa but then markasta waxaa ku xigo maalmo aad iyo aad u xanuun badan like 3 biri 4 biri camal waa faraxsan tahay noloshu way qurux badan tahay 4 biri kale waa ooynaysaa 4 biri kale waa faraxsan tahay 4 biri kale waa ooynaysaa and even waqti waxa imaanaya aad la qabsatid noloshaas. so markaa maalmahaada quruxda badan soo gashid it's a part of you that will always know it's just a matter of time oo waqti yar intay xanuunka iyo waqtiyaasha adkay haddana soo maraan. so maalmo samada ku jirtaa maalmana naara ku jirtaa maalmo samada ku jirtaa maalmana naara ku jirtaa. you see high and lows. tan sagaalaad waxay iftiiminayaan cabsidaada yani qofkan cabsidaada oo dhan oo banaanka keena hadday tahay jaceyl mustaqbalkaada mise xiriirkiina inka qaaska nii ah waxay kala sameynayaan wixii dhaawacyo oo soo marto oo dhanne banaankay keenayaan and there's no running from it. like I said before hore waxaan igu soo sheegay dadka purpose-kooda ka mid ah sababta noloshaada usoo galeen waxay ka mid ah dhaawacyada adiga kugu qarsan inay banaanka keenaan. tan tobanaad they will bring the worst in you and meeshan waa meesha yani xiriirka way iska soo horjeedaan but aniga when I was going through my karmic relationship waxa aniga ikiciyay maartay aan ku fahmayay this person I'm dealing with is not the right person waxay ahayd this point markaa soo gaaray meeshan because they will bring the worst in you. meeshas bas le ma ahan waxaa noqonaya qof adiga weliga hore u noqonin and adiga you cannot even recognize yourself adigas ilowis adigas dhisid yaa waayo qofkan. and then when I was in that position waxaa soo xasuustay the soulmate qofka saxda noloshaada loogu talagalay waxaa loogu talagalay dhinacaada fiican inay banaanka keenaan but this person dhinaciiga xunoo banaanka keenaya which means
qofkan waa qofkii qaladka ahaa mararkaas waxyaalahaas kacay ay ka mid ahaayeen but the karmic markasto dhinacayaashaada xun oo banaanka keena and remember casharaday ku barayaan waxaa ka mid ah nafsadaada inaad dhinac kasta ka baratid aniga weligii alahayga ma ogeen dhinacyo xun inay ii qarsan yihiin that's the same reason u baahan tahay boundaries waqtigaas boundarygii dhan waa la dhaafaya so dhinacayaasheeda xunka banaanka imaanaya sida nafsadeeda u arko sida aniga dhinac kasta iskaga barto so those people waxyaalaha ku barayaana ka mid ah tan 11aad they will make you exhausted and all the up and downs the miscommunication codependency waxay noqonay wax enerjigaada mentalkaada emotionkaada يعني waa ka daalay waa daale exhausting ay kugu sameynayaan especially when they are around markay agaarkaada ka dhab yihiin waxaad dareemay bas inaad daashay because you are dealing with a lot markan qof karmic noloshaada ku jiro tan 12aad you feel like you can't let them go waxaad dareemay qofkan inaad sii dayni karin waxaa laga yaabaa inaad excuse u sameysid partnerkaada despite all of this waxyaalaha dhan kugu dhacayo because your connection is very strong and you feel like you are meant to be this person yani waxaad dareemay qofkan waa qofkii saxda ahay qofkan waa qofkii nolosheeda loogu talagalay ba waxyaalaha dhacayo waxyaalahaas dhan la maris excuse u sameynay and somehow mararka qaar waxaa laga yaabaa inaad dhahdo qofkan waa qofkii saxda ahay why xiriirka u shaqeyn la yahay waxa waxaan dhacayn I understand is because qofkaas maahan qofka saxda ah qofkaas waa karmic ki ugu dambeeyay they don't last ugu dambeyntii they don't last dadkan waa dad noloshaada soo galaya for a reason waana dad loogu talagalay for a season iyo waqti kooban loogu talagalay and waqtigaas kooban markay dhamaato when they have fulfilled their purpose in your life then they got to leave noloshaada waa muhiim inay ka baxaan and hadda meeshan waxay noqon kartaa toxic or even dangerous waa meesha markay noqonayso because markay waqtigan imaado adigina fahmi la adahay qofkan noloshaada inuu ka baxo waaye hadda then nolosha way sii adkaanay nolosha toxic farsun nolosha way sun ee noqonay and turning my marriage I used to read a text markasta igu soo noqon jiray and I know that text was about me it was actually about me waxa ku qorneed markuu ilaahay qofku tusaayo in yani waqtigiis inuu dhamaado markuu ilaahay qofku tusaayo it's time to let this person go adigina fahmi la adahay ilaahay qofkaas oo isticmaala sidoo qofkan ku xanuujiyo until you have no choice but to let that person go inta ama aragtay qofka you have no choice hadda choice kale ma haysatid wax kale albaab kale ku furan ma ahan ilaa qofka noloshaada ka baxo ilaa meeshaas waa gaari kartaa ba haddii kale tana calaamadahan oo dhan arki kartaa and you can let that person go and mid kale waraqad kale taxta aqrinayo from my Instagram and there was also so much power for badan that was so powerful text I was reading waxa ku qoran kalma says mararka qaar nolosha si xun ku silcine not because you are a bad person inaad tahay qof xun balse waxaa fahmi la adahay when it's time to let the person go and you will suffer waxaa maray xanuuno iyo dhibaatooyin u baahan inaad martid ay isku soo jiiday so I really hope in videogan ka faa'iideen and if you see like qof calaamadaha leh inuu noloshaada ku jiro then I got to say whoever you are the best thing you can ever do for yourself in xiriirkaas ka baxdid ama nafsadaada inaad dooratid nafsadaada inaad jeclaatid in way dhib badan tahay way xanuun badan tahay but if you do that maalin gadaal waa soo fiirini doontaa maalina qalbigaada kuu mahadcelini doonaa haddii videoan ka hesheen like ii saara haddii aad qabtiin commentiga kusoo qora haddii aad rabtiin video noocan camal bas wejigayga ina aragtiin channelkayga subscribe ii siiya until next video assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh